waayeelka cuqaasha aqoonyahanka iyo milkiilayaasha biyada ee gobolka Sanaag ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku eedeeyay qorshe ay xukuumaddiisu ku doonayso inay mashaariicda horumarineed ee biyada lagu gacan geliyo shirkado gaar ah oo laga leeyahay gobolka Maroodi Jeex waxaana dhammaanba waayeelkan gobolka Sanaag iyo milkiilayaasha biyada ay xukuumadda Soomaaliland ka codsadeen inay hagardaamada ka dayso shirkadda Asli Maydi oo ay sheegeen in iyada mooyaane cid kale ka iibinayn biyada ka baxda deegaanada gobolka Sanaag waxay dadkan aad uga cabanayaan oo uga hadlayaan horumarkoodii baa dawladdu isu taagtay wax allaale in dadka wax loo qabto hadii il yar uu biriqdo ishaas waxaad moodaa in la baqtiinayo halka waxa ka shaqeysa shirkadda la yiraahdo Asli Maydi waa shirkadda qura ee ganacsata ee keenta iibsata falaanka haday u tahay maydi haday u tahay moxor haday u tahay malmal shirkadda qura iibsata wax kale shirkado oo magaalada joogo oo dadka wax ka iibsada waka waayeelkii dadku ma jiraan shirkadii dhaqdhaqaaqeedii iyo wax qabadkeedii waxaad moodaa xukuumaddu inay hortaagan tahay waxna loo xallibayaa shirkado aan jirin oo saacad walba la leeyahay waa isaysataan haddaan reer Sanaagnahay isma haysano madaxweyne waa anigu intaan xukuumaddiisa ay ka degay rag baa oran jiray aan beeyada lahayn oo heer Hargeysa marka Muuse qabsado baan Sanaag cuna qabatayna oo beeyada sheegta waxaan ragga beeyada sheegta ee heer Hargeysa beeyada ka daaya beeyadu Sanaag bas kale shirkadda Asli Maydina waa heer Sanaag waxaan leenahay madaxweyne ilaa yaalaan wax qabadkaad ku ballan qaaday heer Sanaag kaama hayo bal iskala daa shirkaddii kaliya ee gobolka u dhalatay wax la leeyahay rag heer Hargeysa iyaa maxay ahayd ku yiri xukuumadda noo curyaami qodobka kale waxaan leenahay war shirkadii aan wax uga baranay oo baan daan ka haynayna dalkana wixii aan u aragnay wax qabad u haya waanu soo dhaweynayna waxaan u sheegnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland horta marka hore waa laga boqol madaxweyne waxaan ku leenahay beeyadii waxa qaatay dad aan lahayn oo u dhashay magaalada madaxda dadka beeyadana waxa la dadin dala dad ciyaala dad sabiya xoolahoodu waa baxeen dadkii wixiisii waxa una qabateeyo guryo dhaadheer ka dhistay Hargeysa dad aan beeyada lahayn waxaan ka tirsanahay deegaanka Cirfiin kuna abtirsanay dadka beeyada leh horta marka hore waxaan sheegay bulshooyintii sarac ahayd dawladana waxaan u sheegaynaa war dawladda taageeraan ka rabnaa kama rabno in dadka lagu tunto waxaan leenahay shirkado kale ma jiraan Asli Maydi ahayn Asli Maydina waa gobol Sanaag xijiguna gobol Sanaag buu ka baxaa waxa weeye xukuumadda waxaan ku codsanaynaa dinaga dabar ku xirka iyo dadka kale baasi dadkan gobolka Sanaag xoolihii way ka baxeen dadku amal ma hayo inta waxa amal u ahayd beeyadan waxaan leenahay carqalada laga daayo gacanta loo qabto hal soo dhaweeyo hal lagu taageero wixii carqaladaynayana waxaan codsanaynaa dawladdu inay ka qabato ilaah baan ku dhaariyay nimanka beeyada khashkhashinaya madaxweyne hanala ka joojiyo shirkad kale oo aan ka aqbalayna oo aqbalayna ma jirtoba shirkadda Asli Maydi ee ganacsiga ah ee wax u qabatay dadka ee u qabanaysa hadeer wax u wada ee dadka soo nooleeyay Ilaahay baa nooleeyay ee dadku wax badan ka heleen adeerna waligeed baanaan arag shirkadaha la sheegayo magaalada ma baarag mana naqaan ma aqbalayna marka shirkad kale oo ka aqbalayna oo gobolka Sanaag Maydigeeda iyo hantideeda iyo hantida Maydiga aanu ka aqbalaynaa inay soo gasho ma boogolin waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inuu wax ka qabto dadka beeyada sheeganaya ee sharaa'iga beenta sheeganaya oo shirkadda Asli Maydi ee dalka waxna u qabatay waxna ka iibsatay culayska uu ka qaado wasiiradan waraaqa qoraya iyo taliyayaashan amarada khaladka bixinayana uu naga qabto Cabdiraxmaan Maxamed Xidig telefishinka caalamiga ee TV Ceerigabo